بسم الله الرحمن الرحيم. ولا ليال waxaan rabaa inaan idin sheegno dhibaatada ka taagan suuqa geela lagu wado magaalada Gaalkacyo dhanka Galmudug dhibaato aad u ballaaran way geela la qalo maalin kasta magaalada la keeno waa xaarka sidan way xaarkiisu hadda way ka muuqata waxaan dul joognaa maanta geel fara badan oo ilmeynaya dilin baa ka socota sidoo qof caadi ah waxaan naloo sheegay oo sartooda ka muuqata in ay geelaan uu xiran yahay muddo bil ka badan waxaan shardiyaa in la qalo biyaha laga saaro ayaa la qalajinayaa markii haragga asugu isku dhago kadib ayaa la qalayaa neef waxaan naloo sheegay neef waqti ku qaatay neef toban ku qalala haba dhinac baa loo rogaa qoraxda dhinac maanta dhinacan qoraxda jira galabka dhinac kale loo rogayaa maalinta uu qalala ayaa qaliinka lagu bilaabayaa magaalada la gala dadka ganacsiga sameynaya ama waxa ku jira wadada aan la sheegay roob abaar baa inuu ka xashay ilaahay subhanahu wa ta'ala waarta waxa dhibaato jira wadada ka jira Soomaaliya oo dhan meelaha ugu dhow ee hadda aan deganahay ee deegaanka dadkan degan ee saatin geela yeelaya ay degan yihiin hal kiiloomitir laga baxay deegaanka ay degan yihiin roob loo tagayaa meelaha degan lagu ma roob laga yaqaan dhibaatooyinka haysta oo ugu horeeyaan isbaaradu oo ay ugu horeyso geela xoolaha la xiraayo neef la siinay oo cunno la siinay muddo laba bilood ama hal bila ilaa ma kula shay qofka muslimka oo qaadan kara yahay qofka gadan ayaa weeyay nimanka maqaayadaha jooga kuwa gadan ee qala ka shaqeysa iyo kuwa dalaala iyo kuwa ka hadlay inta ilaahay subhanahu wa ta'ala xsaab ku sameeyay loo istaaga arrintan maamulka odayaasha culimada ardayda ganacsatada qof walba oo muslima ee ka danqanaya dhibaatada lagu hayo baheenka aan mayeeraanka aan dhiigkeena laga furo aan dacwoon karin u diyaarka qaliin u diyaarka inaan la siin biyo u diyaarka inaan la siin maartay shaga indii ay guteen oo sartiis waxa madaa mid caadi ah madaa laamiyeen baa madaa sartiis ka dad u taaganahay ilaahay baa ku dhaarshay cunna ka raadinayna wax loo qaadan karo ma aha cidii qarinay cidii lahayba musiibo umada haysto waxaan maanta ka unimid ay taariikhdu tahay 14 Ramadaan 9 bisha June ay tahay waxaan unimid in umada loo yahay islaamka waxaan ka wasanayna arrintan lagu horto in umada loo sheego in laga digtoonaado in la keenay waxa noocaas loo qalay waxa nooca loo qalay in la keenay qofka uu awoodi waayo inuu asxaan u sameeyo neefkaas inuu asagoo waqti ku keenana asxaan macnaha way wax ka ilaa ma jiraan xusaan diin islaam xadiis ma jirto neefka waxa uu dalka diinta sharci ay leedahay neefka markii la qalayo waxaa lagu talagalay loo raaxeeyo in biyo la siiyo birta laga afeeyo in aan la isku gowracin iska daa in biyo la siiyo bil iyo barkoor baa neefka la qalajiyay hadda waa laamiyeer caadiya arrintan ka digaynaa waxaan ka samaynaynaa maaragtay ii sheeg cidii dood ka qabta iyo cidii maaragtay ii sheeg u aragtay inuu saatan xal tahay ayada hadli doonta laakiin dadka muslimiinta qaaraan maanta waxaan ka codsanaynaa arrintan in laga hortago aad baan uga xunnahay dhibaatooyin soo aragna maanta laga soo bilaabay dhinacaas ilaa dhinacaas waxaa xoolo meesha ku xiran noo jeedin laakiin kuwaana bilbil iyo loola beoda la qeyb way say weeyeen marka waxaan ka codsanaynaa dadka inay u kacaan arrintan aad baan u mahadsantihiin dhalinyarada waxay qaata arrintan inay wax ka ogaadaan insha allah mana ka hari doonno way dabagelaynaa dadka noocaas sameynaya meel kastaan ka sheegi doonaa awooddeena inta tahay ayaa ku nahiyeen waa mahadsantihiin